wararka laga soo gaaraya deegaanka Ceelwaaq gobolka Gado ayaa waxay sheegayaan in deegaankaasi ay ku dagaalameen ciidamada militariga Kenya iyo dadka shacabka ay ku nool deegaankaasi waxaana keenay dagaal kala u dhaxeeya ciidamada Kenya iyo dadka shacabka ah kadib markii ay ciidamadu isku dayeen inay dhexmarsiiyaan degmada Ceelwaaq qalab dhisme kaasi oo ay u sideen in lagu dhiso gidaarka ay Kenya ka dhisayso xuduudda ay la wadaagto Soomaaliya taasoo ay dadka shacabka ay soo taageen sida uu noo xaqiijiyo Korneyl Aadan Xirsi Rufle mar uu wareysi gaar ah siinayay KNN waxa inta korneylku ku daray inaysan waxba khasaare ah geysan rasaas ay ciidamadu ku fureen dadka shacabka ah ee soo taagayay dhinaca kale waxa uu amaanay bogaadin u jeediyay shacabka Soomaaliyeed ka hortagay isagoo arintaasi ku amaanay dhinaca kale waxa uu ku booriyay shacabka Soomaaliyeed inay iska difaacaan Kenyaanka ku soo duulay dhulka ay Soomaalidu leedahay shacabka degmada Ceelwaaq gobolka Gado waxay ula tageen gacan ayagoo oo muujinayo sharafka iyo ciziga iyo ciidda inay difaacaan waxa ku soo biiray oo ay ballan lahaayeen shacabka Ceelwaaq NFD ee deegaanka dhinaca shisheeye ay guumaysato ayagoo iskaashanayo meesha shacabka xabaday adoontu riday laakiin wax dhimasho dhaawac kama dhicin Ilaahay fadligii adoontii iyo dajintii alaabtii ay dajinayeen meeshaas ay ku istaagteen maadaama labada dhinacba shacabkii deganaa uu iska kaashanayo in arrinta laga hortago welina aagi waxa ku sugan ciidanka Kenya iyo dadkii kalbisay ayada u shaqeynayay waxaan doonayaa anigoo ka faa'iideysanayo arrintan inaan shacabka Soomaaliyeed u sheego iyo maal saxaafadda raasiga Kaamboni iyo la ka horaawa Jarila tuulada Kulbiyo waxa ka socota shaqo mid la mid ah waxay sameynayaan ciidamada Kenyaanku inay bixiyaan kuudadka Ingiriiskii iyo Talyaanigii gumaysiga ay dhigeen muddo ka badan ku dhawaad 100 sano meesha ku jiray dawladda Kenya ayaa wada dhismaha gidaar u dhaxeeya xuduudda ay la wadaagto Soomaaliya kaas oo sidoo kale hore u dhaliyay khilaaf iyo iska xaqaad dhexmara ciidamada iyo dadka shacabka Soomaaliyeed oo aan ogolaan dhismaha gidaarkaasi